wuxuu leeyahay garasho iyo caqli u dhigma anug 7 jir ah. sidoo kale wuxuu leeyahay xusuus aad u awood badan taas oo ku aqoonsada sheeyaasha. wuxuu garan karaa oo kala saari karaa wajiyada bini'aadamka mana hilmaamo qofkii hal maalin dib u geystay. noolaha aan ka hadlayo waa tukahee waxaa loo diiwaan geliyey inuu ka mid yahay xayawaanada ugu caqliga badan ee ku sugan oogada sare ee dhulka. waxaa kaloo loogu yeeraa barihii ama macallinkii koowaad ee baray bini'aadamka sida loo asturo meydka. waxyaabaha cajiibka ah ee uu shimbirkan la gaarka yahay waxaa ka mid ah inuu leeyahay nidaam garsoor oo cadaalad ku dhisan. xeerarka u yaalla shimbirkan waxaa ka mid ah haddii tuke uu burburiyo buul tuko kale waxaa lagu xukumaa inuu u dhiso buul cusub. sidoo kale haddii uu tuko ku xadgudbo dumaashadiisa ama xaaska tuko kale waxaa lagu xukumaa dil toogasho ah. sidoo kale tukaha qaab caqli iyo garasho ku dheehan tahay ayuu u faa'iidaystaa agabyada ku hareeraysan si waxa uu rabo uga cuno ama uu u qaato. tukaha markuu guursanayo wuxuu u guursadaa sida bini'aadamka oo kale waxayna iskugu yimaadaan munaasabad kulmiso labada ehel. laakiin bini'aadamku wuxuu kaga duwan yahay tukaha lab wuxuu guursan karaa keliya hal xaas. haddii ay ka dhimatana ma guursado gadaasheed keliya wuxuu ku noolaadaa xusuusta xaaskiisii hore.